kulanti wacan daawadayaal halkan waa janalka Halgan Media kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya ee caalamka qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay kulan madaxtooyada uga socday Farmaajo Dani iyo Axmed Madoobe ciidamada Jubbaland oo al-shabaab kala wareegay bar ay lacagaha ku qaadi jireen Cabdiqaasin Salaad Xasan oo diray fariin muhiim ah ka hor furitaanka shirka Muqdisho dil arxan darro ah oo maanta ka dhacay magaalada Garowe caasimadda maamulka Puntland duqa Muqdisho oo magacaabay gudoomiyaal degmo oo cusub iyo Silrion oo ciidamo soo direysa dalkan Soomaaliya waa sabti taariikhduna ay ku beegan tahay 5 bisha 9 sanadka 2020 u diyaar garooba saaxiibayaal qodobada warka aad daawateen dhameystiran aynu ku bilaabnay wararkii ugu dambeeyay kulan madaxtooyada uga socda Farmaajo Dani iyo Axmed Madoobe madaxtooyada Soomaaliya waxaa ka socda kulan dhexmaraya madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland Siciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Madoobe horey ayay saddexdan hogaamiye u ballansanaayeen balse uu baaqday kadib markii ay Jubbaland keentay shuruud adag oo isfaham waa ka dhex abuurtay waana tan keentay in la qabto kulanka wararka uu helayo Halgan Media ayaa sheegaya in kulankan uu yahay kulan kaliya looga hadlayo arrimaha doorashada iyo sidii ay u dhici lahayd doorasho waqtigeeda ku qabsoonta isla markaana la isla ogol yahay Siciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Madoobe ayaa la sheegayaa inay wadaan qorshe wajiyada dambe ee shirka loogu soo kordhiyo madaxweynayaasha Hirshabelle Galmudug iyo Koonfur Galbeed lama oga hadii madaxweynayaasha maamulada kale ay ka soo qayb gali doonaan maadaama Siciid Dani iyo Madoobe aysan soo xaadirin gogashii ugu dambeysay ee Dhuusamareeb isla markaana ay qaadiceen qaar kamid ah qodobadii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb 3 ciidamada Jubbaland waxay al-shabaab kala wareegeen bar ay lacagaha ku qaadi jireen wararka laga helayo deegaanka Janay Cabdalla oo qiyaasii 60 kiiloomitir u jira magaalada Kismaayo waxaa la wareegay ciidamada Jubbaland iyagoona wax dagaal ah kala kulmin dagaalamayaasha al-shabaab deegaanka Janay Cabdalla ayaa ahaa fariisin muhiim u ah kooxda al-shabaab ee xiriirka la leh al-Qaacida waxayna gaadiidka isticmaala wadadaasi ay u kala goosha deegaanada Jubbooyinka lacag uga qaadi jireen ciidamada Jubbaland ayaa si aan dib lahayn ula wareegay deegaanka waxaana hadda jira dhaqaaq ay ciidamada ka wadaan isla deegaankaasi al-shabaab waxa ay baacsi kala kulmayaan ciidamada Jubbaland oo dhinac ah ciidamada Mareykanka ee hoos yimaada taliska Africom iyo kuwa xooga dalka Soomaaliya dhinaca kalena xog la helay oo al-shabaab damacsanayeen ayaa digniin laga soo saaray taliska booliiska magaalada Beledweyne ayaa soo saaray awaamir lagu mamnuucayo gaadiidka muraayadaha madow ama loo yaqaano bensalka qoraal ka soo baxay xafiiska taliyaha ciidanka booliiska Beledweyne Maxamed Maxamuud Roble ayaa uga digay dhammaan gaadiidleyda ka shaqeeya gudaha magaalada Beledweyne iyo kuwa soo galaba in baabuurtooda ay ku dhijiyaan bacaha madow sidoo kale ayay ka digeen inaan wax gaadiid ah la dhigi karin inta u dhaxaysa bacadlaha iyo faafka hore ee xarunta maamulka gobolka taliska booliiska ayaa sheegay in cidii u hogaansami weysa amarkan ay tallaabo adag ka qaadi doonaan tani waxay dadka qaar ku micinayeen xog sirdoon oo la helay taas oo amni darro lagu geysan karo baabuurta miraayadaha madow taas oo booliiskuna isla amarkan ay soo saareen Cabdiqaasin Salaad Xasan ayaa diray fariin muhiim ah ka hor furitaanka shirka Muqdisho madaxweynihii hore ee dawladii ku meel gaarka ahayd ee dalkan Cabdiqaasin Salaad Xasan ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo ismariwaaga u dhaxeeya madaxda dawladda iyo kuwa dawlad goboleedyada dalka Cabdiqaasin ayaa kula taliyay madaxda dawladda dhexe iyo kuwa kale ee dawlad goboleedyada gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland in xalka laga abaaro dhanka wanaaga wada shaqeynta iyo isu tanaasulka si loo gaaro horumarka la hiigsanayo sidoo kale wuxuu tilmaamay in haatan loo baahan yahay in laga gudbo hanaanka awood qaybsiga 4.5 isla markaana dalka loo jiheeyo doorasho dadweyne si ay shacabka wax u doortaan ugu dambeyn waxa uu u baaqay shacabka Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan dawladooda isla markaana ay ku kala soonaadaan si loo gudbo marxaladda kala guurka ee haatan lagu jiro dilar xandarra ayaa maanta ka dhacay magaalada Garowe wararka naga soo gaaraya magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxay sheegayaan in magaaladaasi lagu dilay
nin ka mid ahaa xoogsatada magaalada Garowe. ninka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Yaasiin Aweys Maxamed oo ka mid ahaa dadka xoogsada ah ee ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya gaar ahaan magaalada Jowhar. ninkan ayaa loo dilay sabab la xiriirta in wadada xirmatay muran ka dhashay waxaana goobta ka qaaday meedkiisa ciidanka. ninkii dilka geesta ayaa la sheegay inuu goobta ka baxsaday waxaana baadi goob ugu jira ciidanka ammaanka Puntland. xiisad siyaasadeed ayaa ka taagan doorashooyinka maamulka Hirshabelle. xiisad siyaasadeed ayaa ka taagan doorashooyinka Hirshabelle oo la filayo in dhawaan si rasmi ah loo bilaabo dhismaha baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabelle sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada maamulkaasi. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle ayaa sheegay in si rasmi ah loo bilaabay howlaha dhismaha baarlamaanka Hirshabelle oo ay gacanta ku hayaan guddigii loo xil saaray ee dhawaan u magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare. waxayna tilmaameen isbedel weyn laga dareemayo magaalada Jowhar oo ay ku sii qulqulayaan siyaasiyiin xildoon ah iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka qayb galaya doorashooyinka maamulkaasi. xildhibaan Aadan Cabdi Faarax oo ka tirsan Hirshabelle baarlamaankooda ayaa sheegay in guddiga madaxweynaha Hirshabelle uu magacaabay ay wadaan howlo soo xulidda ergada soo xulaya xildhibaanada cusub. waxa uu sheegay inaysan aqoonsanayn guddiyada kala duwan looga dhawaaqay deegaanada maamulka Hirshabelle iyo sidoo kale soo xulidda xildhibaanada ee ka socda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. duqa Muqdishona waxa uu magacaabay gudoomiye cusub. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa gudoomiye cusub magacaabay degmada Xamar Jab kadib markii dhawaan gudoomiyihii beeshii loo magacaabay ay diiday xilkaasi. Dr. Maxamed Cabdi Axmed Xayle ayaa loo magacaabay gudoomiyaha degmada Xamar Jab ee gobolka Banaadir. gudoomiyaha cusub ayaa isla maanta la wareegay xilka gudoomiyaha degmada Xamar Jab. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Finish iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa ka qayb galay munaasabad uu xilka kula wareegay gudoomiyaha cusub ee degmada Xamar Jab mudane Maxamed Cabdi Axmed. ugu dambeyntiina Sierra Leone ayaa ciidamo booliis oo soo diraysa gudaha dalkan Soomaaliya. dowladda Sierra Leone ayaa ku dhawaaqday inay diyaarisay ciidamo booliis oo gaaraya 160 sargaal oo ay u tababareen inay u diraan Soomaaliya si ay uga qayb qaataan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. afayeen u hadlay booliiska Sierra Leone ayaa warbaahinta u sheegay in la siiyay tababar ku saabsan habka nabad ilaalinta oo ay aqoon hore u lahaayeen maadaama wadankiisa uusan ku cusbayn howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya. qorshaha cusub ee dowladda Sierra Leone ayaa la sheegay in laba qayb loo kala qaadayo ciidamadan dufcadaha ugu horeysa oo ka kooban 80 sargaal Soomaaliya la keenayo sabtiga maanta 5 September ilaa 6 bishan oo maalinta beriya. garoonka diyaaradaha Freetown ee loogu magacdaray caasimadda Sierra Leone ayuu sheegay afayeenka inay diyaar ku yihiin ciidamadan loo qorsheeyay Soomaaliya kaliya ay sugayaan diyaaradda gaarka ah ee lagu qaadayo. guud ahaan daawadayaal waa naga inta wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka tan iyo kulan dambe nabadgelyo.